waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga siyaasadda arrimaha dibadda sida aad la socotaan dhawaan waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wada tashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo dardargelinaya doorashada inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay haddana alxamdulillaah waa guuleystay shirkaasi wuxuuna dejiyay dhammaan qulubta shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhameystir lahayn arrimaha doorashooyinka oo shaqada ugu weyn ee inoo taalo dhammaan waxaan rabaa halkan in aan uga mahad celiyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan musharaxiinta xilka madaxweynaha bulshada rayidka beesha caalamka iyo women ambassadors oo nagala qayb galay dhammaantoodna ay muujiyaan isgarab istaag iyo faham adag sida aad la socotaan shirkii markaan bilownay golaha wada tashi kumaana degdegin inaan qaadano qoraal ama statement ama go'aankii ugu dambeeyay waxaan bilownay inaan la fariisano dhammaan stakeholders ay ugu horeeyaan musharaxiinta waan dhageysanay cabashadoodii waan dhageysanay taladoodii waan dhageysanay wixii ay qabeen waana ka qaadanay sidoo kale waxaan dhageysanay saaxiibada beesha caalamka talooyin ay noo soo jeediyeen waana ka qaadanay waxaas oo documentin way nagu soo wareejiyeen sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka iyo women ambassadors oo iyagana noo soo gudbiyay aaradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duulayno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii ay noo soo jeediyeen intii badneed oo ugu badneed waa qaadanay waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan qoraal ayaan sameynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda muddo maalmaha waa isjiideynay laakiin markay naga soo dhamaatay annagoona go'aan qaadan ayaa haddana waxaan go'aansanay inaan la kulanno stakeholders ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta waan ka wada tashanay wixii aan ku heshiinay inaan boqolkiiba 99 qaadanay ayaan u sheegnay wax kale nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeen sideedii aan u qaadanay sidoo kale waxaan la kulannay saaxiibada caalamka beesha caalamka ee Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo women ambassadors intay soo jeedeen sideedu ayaan u qaadanay aan u dhignay documentigii statementigina sidaas uu ku soo baxay si lagu wada kalsoon yahay loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ayaan statementigaas ku soo saarnay isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda step by step inta laabadaas la wada raaco iyo amniga waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyay in fulinteedii aad qayb ka noqotaan idinka kaliya maaha wasiirada waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada rayidka musharaxiinta beesha caalamka dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyay oo daahfurnaanta doorashada oo aan dul istaagnay qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya ergooyinka ilaa ay doorashadaas ka dhamaanayso in nalagu kor joogteeyo nalagu dabagalo lala socdo oo isha lagu hayo qof kastoo Soomaali hadduu joogo magaalo madaxda hadduu joogo gobol hadduu joogo dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 40 maalmood nalagu daba joogo waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15 bishan oo maalinta Sabtiga waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyaddan waa mas'uuliyad wadareed qof kasto ayay qusaysaa waa in nalagu kor joogteeyaa maalinta Sabtiga waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan 6 deegaan doorasho oo 5 dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho waa in lagu kor joogteeyaa
waan ogahay inay jiraan markasta wanaag la aado kuwa isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada waana dhaqan xun waana midka inoo keenay halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo saad la socotaan maalin kasto iyo habeen kastaba waxa soo baxo statements in lagu xoojinayo inaan waqtiga dib looga dhicin in doorashada waqtigeeda lagu dhameeyo waqtiga lagu heshiiyo in lagu dhameeyana aan maalin dib looga dhicin sidaa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena oo korjoogtada nagu hayo laakiin annagana waxaan rabnaa inaan isxilqaano waajib ayaa naga saaran shacabka Soomaaliyeed dalkan xaaladdu ku jiro qof kasta Soomaali ah meel kasta uu joogay waa ogyahay xalka kaliya aan haysano waa doorasho waxaan leeyahay doorashada saaxiibaday anigu aan ugu horeeyo iyo dawlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan aan u fulino shacabkana aan waqtigoodii iyo dhiigoodii iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay haddaan u gudbo amniga waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed difaaca shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan uga mahad celinayaa waan u bogaadinayaa waxaan u tacsiideynayaa dhammaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacayo qof kasta oo Soomaali ah waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xoogooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed dhammaanteen qof kasta oo Soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan kaloo farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen sida murtiyadkeena uu ku jiray ay markasta ahaadaan dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda taasoo ah dhaqan fool xun oo wadan kasta ku dhaqmana dib u dhac u keena sidaa darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahada arrimaha siyaasadda waxa waajib idinka saaran waa difaaca dalkiina iyo dadkiina cadawga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo ay tahay inaan ka hortagno ma ahan inay siyaasadda ku milmaan waa in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda arrimaha dibadda sidaad la socotaan dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo u adeegaysa maslaxadda ummadda Soomaaliyeed sidaa awgeed waxa inaga go'an tahay in aan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi waxbarasho iyo socdaal inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxadda ummadda Soomaaliyeed saad la socotaan suurtagal ma aha in aan si aan macno lahayn u colaadino dalal aan walaalanahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhaxmarto balaayiin dollar sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda marka dal ka ra'iisul wasaare ahaan ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka Soomaaliyeedna cid kasto walaalo u leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa cid aan gooni u target gareynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto sidaa darteed waa inaan wanaajinaa cid kastoo danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda hadday tahay nolosheeda hadday tahay waxbarashadeeda hadday tahay iyo hadday socdaalkeeda tahayba waana waajib muqadas oo na saaran waxaan rabaa in aan uga digo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ku xadgudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuqmaasuq ah saad la socotaan xukuumaddeena waqti yar ay haysataa waad la socotaan waqtiga yar aan haysano marar waxa soo baxa heshiisyo in la galo aan loo baahnayn oo degdeg ah waxa soo baxayo in maxaa la yiraahdaa qofka markaa meesha jooga uu isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waa in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa inaan aad u taxadarnaa kana feejignaanaa sidaa darteed ka ra'iisul wasaare ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iideysto waqtigan xasaasiga ah ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax la isku daba mariyo sidoo kale waa qasab in dhammaan mas'uuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami u socodka shaqo gudashada hay'adaha dawladda sida aan hore
ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha qalad uu dhici karaa waa in xafiiska ra'iisul wasaaraha lala socodsiiyaa lalana tashtaa yaanan lagu degdegin xilka qaadis iyo magacaabis sababtan saas u leeyahayna wax kale ma ahan xilli gabagaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof ciil u qaba ama qof beegsanaya inuusan dhicin sidoo kale agaasimayaasha maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sidaa darteed wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay